cilaad ka hanjabaysaa waxaynu isla qirsannahay ummadda Soomaaliyeed pressureka ugu badan in ay saarayso burburka iyo dhibaataynta Puntland waa wax jira innaga marka qaabka aynu u hadalno oo haddii Ilaahay ku rooyahay aan u faantamayno waxma inuu ku saxan yahay mas'ala ina ka khaldan maya hadalka seen u qurxinayno oo wuxuu qurxsanayna ma jirto dhaliila aan leenahayna way jiraan waxa waxtarkan marka noqonaya waxay tahay maalweyd waxaan arkahay waa soo noqonaya waxa waxtarka inoo leh maalweyd oo dhalinyaro reer Puntland ah oo General Faisal iyo Siraadi xisbiyadan ajaaba iyo ay wadeen akoon la furahayay ila cala qof $10 hal laga qaado reer Puntland waa dad aad u tiro badan ma sha Allah $10 dad ay culaysisa ma aha waa in la helo marka haddii la helo maxaan ku iraahdaa dad aamin ah oo muwaadiniin ah oo dadka iyo dalka u adeegaya waa waxaan annagana noo fudud dadkiina wax u tarahaya waxyaalaha marka la raba in la qabto waxaa ka mid ah inagu dawladdeena inaynu la xisaabtanno dalka Soomaaliya wax uu dhammaantii ka siman yahay baa jirta faanka waa gaar waxqabadkuna waa gaar Puntland dadka iyagu degan baa waxay yihiin dad nabadeed dad horumar dad ilbax ah laakiin haykalka dawladnimo waxtarka bulshada marka la yiraahdo waxba kaga duwana kuwa kale waxa la rabaa marka dawladdu waxyaalaha hadda wiilku uu ka hadlayo waxa kamid ah cunada dadku ay cunahayaan in laga kantaroolo dawladdu ay ka kantaroosho waxa kamid ah waxbarashada tayada in la kantaroolo waxa kamid ah dhakhtarka caafimaadka oo imaanahay wixii in la kantaroolo waxa moodaa Soomaaliya qofku markii uu xil qabto ninka xilka qabta in guri uu leeyahay iyo xaaskiisa iyo furihiisa lagu wareejiyay isla xisaabtan dambe uusan jirin isagu soo rabo uu ka yeelo waa sifa khaldan baarlamaankan ka hadlin dadkan ka hadlin ismadan ka hadlin dalaad sifa sax ma